ولا ليال وان السلامي سلام كل يلابا وحن رغمت هوري إنان ولالك أحمد نور ومهد اليو أنا قاب كان هركسرا ومسو أجاسمي أما أقصو أجاسمتين تيم كا أني organization إيو جالية الصومالية همبرغ وأنا هوشو ماشي كبلا نيسو حقيقة ذو حويه haddaan rabno inaan gacan ka hadal iyo dib uu keeno aan ka badbaadino ama aan ka badbaadino annaga lafteena inaan bilowno inaan isku tashanno maxaan isku tashanaynaa la shaqeeya community-ga waxaan hilmaamay gabadhan walaasheena Irena inaan u mahad celiyo oo runtii yani qiimo weyn أكتر كلا سبب واحد هاي very مارتي ووحي يعني مهمة قبل أفريقيانا أو ولا شيء هنا ما عندنا نحفر لذو أو أي لقي سنة يسو أنا community جانا وحنا كولا هذين because she's one of our community. We are her community too. So back to back Africa. So marka waxa la rabaa laba shay inaad xaqiiqsataan ka hortaga gacan ka hadalku wuxuu ka bilowdaa tarbiyaduna kama qiimo yara markaad shaqo aadayso oo lacag u raadinayso lacag raadsanayso lacag hadayna carruurtaadi ku koriso reerkaaga ku koriso right ama gabar oo wiil ah oo aanina oo inta in ka badan waxaan rabaa inaad geliso investment way qoyska la dhisayaa waa wax soo baxayo the result of the community is the family community marka maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay inay dib isugu laabato ay fiiriso qoyska war guriga maxaa ka khaldan sheeg mayno ma wax badan baa naga khaldan qoyska waxaad rabaa inta dhaaftid inaad wadada isbarto inaad wadada iyo baarmiyada tagtaan tiraadaan walaalka Soomaaliga meesha ku dhibaataysan inaan u gargaaran rabo family waa ka talaabsad family waad meelaysay laakiin xaqiiqtaas soo wariya safiirku waa idin sheegay qof dhibaato haysato walaal Soomaaliya gabar iyo wiilba ma dhaafayno haddii loo baahdo waa la celinaya sababtu waxay tahay waxaan haynaa dhalinyaro badan oo asaasa ku noqotay dalkan ma sheegayo waxay ku noqdeen laakiin waxa loo baahan yahay annagoo dhan inaan inta isku kaashano aan iraahno gabadhani waxay ku roontahay in la celiyo si ay nolosheeda dib ugu dhisato wiilkan wuxuu ku roon yahay in dib loo celiyo si ay nolosheeda dib ugu dhisato ilaa man ku dhaariyay qof xabsi ku jira 10 sano lagu xukumay ama 15 sano lagu xukumay Jarmal wuxuu ka joogaa Jarmal xabsi ku jira xad joogta marka aan dib isugu laabano aan ilaahay aamino adinkuna is aamina isla shaqeeya ururadiina nimanka dhalinyarada oo idin ordaya la shaqeeyo aamina dibkana ha laga daayo dibkana ha laga daayo sababtu waxay tahay annaga Soomaali haddaan nahay waxaa safaaradda haddaan nahay waxaan noo tilmaamay qofka bulshadeena u shaqeeya waa looga tilmaaman yahay dadka kale maxay tahay marka waa inaan difaacno intaasaan kusoo gabagabaynayaa maanta waa inaan salaamu calaykum waraxmatullahi